xaadatay wax badan oo wanaagihina uu ka soo baxay waxaan la wadaagaynaa dadka aan ehelka nahay ee walaalaha nahay ee deegaanku naga dhaxeeyo een mar walba ismudanno ama kuumade ama Soomaalida kale ee la degan ee ku dhex nool ah ama ogaadeen ama Maxamed Subeer waxaan rabnaa inaan u sheegno shirkaasi inuu ku soo dhamaaday guul iyo gobonnimo wada jir iyo walaalnimo shirkaas oon aad iyo aad ugu mahadcelinayno dadka aan walaalaha nahay ee deegaanku naga dhaxeeyo een mar walba isdooranno ee nooc walba leh annaga oo mar walba hadda aan kaga hadlaynin siyaasad waxaan soo qaadanay dhaqanka iyo gobonnimada iyo wanaagga aan dadka kula noolnahay inaan kow ka ahaano waxaa shirkaa ka mid ah qodobadiisa inaan soo qaadanay beesha Maxamed Subeer inay muqaddas tahay wada jirkeeda wada noolaanshaheeda iyo haddii alla idmahayo wax alla wixii iyada wanaageeda sidaas oo kale beesha ogaadeen aanan marnaba kala maarmin ee walaalahana oo mahad badan u hayno hadda ka hor nala doortay gabanahii beesha reer Waasnuur ay u taagnayd waxaan iyadana hawada u marinaynaa mahad celin walaalnimo iyo wada jir insha Allah taala waxaan hadda ka dambe ka rajaynana waa inta iyo in ka wanaagsan beeshu waxay u mahad celinaysaa cid walba oo ama dhaqan naga dhaxeeyo ama diin naga dhaxayso ama wada jir iyo walaalnimo ay naga dhaxayso aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ka tagay waxa ku dari doona walaalaha kale ee ergada ahaa iyo cuqaasha beesha reer Waasnuur ee Nuur Xasan kulligiina waad salaamantihiin wabillahi tawfiiq marka ugu horeysa waxaan mahad u jeedinayaa shirkan ka qabsoomay habaas weyne ee Nuur Xasan waxaa ka soo baxay midnimo wada jir yaa ka soo baxay waxaanan hadda aan ku baaqaynaa waxaa ugu horeeya beesha Maxamed Subeer walaaltinimada iyo dhalashada naga dhaxaysa midnimadeeda xagga nabadgelyo iyo dhan walbaba inaanu soo dhaweyno kow ka noqono ayaanu shirka ayaa ka soo baxay waxaa ka soo baxoo kale beesha ogaadeen ama qabiilka ogaadeen walaalaha nahay ee iyadan dhalashada naga dhaxayso oo mar horena na doortay oo gafanihii noo doortay iyadana sidaas iyo si leeg wada dhalashadii ay sameeyeen wanaagii ay sameeyeen yaanu u haynaa kuna soo dhaweynaynaa horeyna ay noogu sameeyeen annaguna aanu haynaa waxaa haddana ku xiga beesha kuumade isagana sida oo kale saasaana iyo ummadda kale ee islaamka nala nool waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan si nabadgelya macaamil wanaagsan cid kasta oo ay naga dhaxayso hadday noqoto habaas weyne intay beeshu degto wajeer diif dhulka ay degto sidaasaan baaqaasaan cod gaaban iyo cod dheerba aan ugu diraynaa ummaddaan la degannahay kuwa walaalaha wabilaahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan halkan ugu wadaagaynaa shirkii ka socday meesha saddex maalmood beesha reer Waasnuur oo u socday meeshan saddex maalmood oo shir ah say odayaashii u horeeyay ay sheegeen ayaga dhameeyay wax walba marka shirka waxyaalihii ka soo baxay qodobadii intii badnayd odayaasha sheegay waxaan rabaa inaan raaciyo sidoo kale beeshu waxay shirkoodii ka soo baxay in laga shaqeeyo walaaltinimo ka bilaabato Waasnuur marta Maxamed Subeer sii marta ogaadeen ilaa kuumada laga gaarayo gacmaha la isqabto wada jir iyo walaalnimana laga shaqeeyo lagana fogaado wax walba oo keenaya isqaybinta qabiilka iyo isnaca beeshu qodobadii ka soo baxay qodobadaas ka mid ah waxaa kaloo beeshu ka hadashay oo qodobadii shirkada ka soo baxay ka mid ah in ammaanka laga shaqeeyo oo wixii dhibaato iyo amni darro keenaya
in laga fogaado qodobadii ay isku raaceen bay ka mid tahay waxay kaloo beeshu ay ka hadashay qodobada isku raaceen aha inay diinta islaamka walaalo lagu yahay diinta islaamkana garab la siiyo lagana shaqeeyo wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelinaya lagana fogaado wax walba oo dhibaato keenaya intii kalena waxa dhameeyay odayaasha hada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi